السلام عليكم kusoo dhawaada mar kale waxbarad iyo fiideo cusub oo aanu si dulka xaadis ah ugaga faalloon doono luqadaha lagaga hadlo Afrika kuna xusi doono xogo ku saabsan luqadaha Afrika waa qaaradda labaad ee ugu weyn adduunka waxaa ku nool dad lagu qiyaaso 1 bilyan iyo 250 milyan oo qof taasoo ka dhigaysa in qaaradanu tahay qaaradda labaad ee ugu dadka badan adduunka sida aynu uga soo waranay fiideogoonii hore aynu ku qaadaadhigaynay dadweynaha kala duwan ee Afrika ku nool waxaa qaaradan hoy ugu yeedha bulshooyin aad u kala duwan hadday noqoto dhaqan diin iyo muuqaal taasi waa marka la barbar dhigo qaaradaha kale waxa kale oo haddaba kala duwanaanshaha dadweynaha Afrika qayb laxaale ka qaata kala duwanaanshaha ay Afrikaanku ugu kala duwan yihiin dhanka luqadaha ay ku hadlaan oo Afrika waxaa laga hadlaa luqado lagu qiyaaso 2,000 oo luqadood marka koowaadba luqadaha adduunka marka la doonayo in la qaybiyo waxaa loo ururiyaa reer iyadoo oo loo eegayo sida ay isugu dhow yihiin kelmadaha ay wadaagaan iyo naxwahooda iyo wixii la mid ah oo reer kasta ama family kasta oo luqadeed waxa iyana loo sii qaybiyaa jilib ama jufo ilaa loo dhaadhaco luqadda loo socdo laftigeeda oo iyana si yeelan karta lahjado Afrika waxaa laga hadlaa si guud luqado soo hoos gala 6 language family oo waaweyn iyo luqado aan badnayn oo iyagu gooni u taagan oo aan reerna ku abtirsan oo loo yaqaan language isolates language family-ga koowaad aynu maanta taaban doonaa waa ka loo yaqaano Khoisan inkasta oo hadda culimada ku takhasustay luqaduhu ka guureen aragtidii ahayd in luqadahan la isku yiraahdo Khoisan ay isku ab yihiin haddana luqadahan waxa ay wadaagaan sifooyin ay kamid tahay inay leeyihiin dhawaaq ama xuruuf cajiib ah oo ka dhashay marka carabka lagu garaaco saqafka sare ee gudaha afka luqadahan la isku yiraahdo Khoisan ama Khoisan waxaa laga hadlaa koonfurta Afrika gaar ahaan wadamada Namibia Botswana iyo South Africa waxaana afafkan ku hadla dad gaaraya ku dhawaad 1 milyan ilaa 500,000 qof dadka ku hadla luqadahan badanaa waa dad ugaarsato iyo qaraabsato isugu jira waxaana ay leeyihiin oo ay caan ku yihiin muuqaalkooda ka duwan dadka kale ee koonfurta ilaa bartamaha Afrika ku nool lagu yaqaano waxaa la sheegaa in hidda-sida ahaan dadka afafkan ku hadla qaar ka mid yihiin kuwii ugu qadiimsanaa bani aadamka oo ka dhigaysa inay dadkan yihiin dadkii ugu horeeyay ee daga koonfurta Afrika luqadahan reerka ugu badan adduunku waa reerka la isku yiraahdo Niger Congo waxaana soo hoos gala daladan luqado lagu qiyaaso 1,500 oo luqadood waa inta la yaqaan waxaa luqadahan laga hadlaa galbeedka koonfurta bartamaha ilaa bariga Afrika xitaa xeebaha dhulkeena Soomaaliyeed waa laga hadlaa luqado isurkoodu ka soo jeedo reerkan laanta dheer luqadaha Bantuuga haddaad hore u maqashay waxa ay ka soo jeedaan reerka Niger Congo la yiraahdo luqadaha reerkan ka soo jeeda aad taqaan waxa kamid ah Swahiliga waxa kale oo kamid ah luqadaha laga hadlo Soomaaliya ee ay kamid ka yihiin Mishunguliga oo luqadda ugu abdow laga hadlo Tanzania Chimwini oo laga hadlo Barawe iyo Kibachuni oo laga hadlo cirifka koonfureed ee xadka Soomaaliya iyo Kenya Chimwini iyo Kibachuni waa laba luqadood oo xiriir dawla leh Swahiliga luqadahan waa luqado aan asal ahaan ka soo jeedin Afrika sidaad magaca ka dhadhasan kartaan waa luqado ay keeneen sanacadaaluhu kadibna sida dhacday caadiga ah luqadahani waa ay Afrikaanoobeen sida Afrikaans oo ah luqada Afrikaanooday asalkeeduna yahay Dutch hase ahaatee haatan loo nisbeeyo inay tahay luqad goonideeda u taagan oo ku qaangaadhay kuna xididaysatay Afrika dhexdeeda waxaana laga hadlaa luqadan South Africa luqadaha kale ee Indo-European abiyo Israahaan ah hase ahaatee ku tarmay Afrika waxaa ka mid ah luqadaha loo yaqaan Creole oo ah luqado ka dhashay Spanish Portuguese French ama English oo lagu dhafay luqad kale oo asalkeedu yahay Afrikaan tusaale ahaan luqadaha laga hadlo jasiiradaha Cape Verde waa luqado ka farcamay Portugiiska waa reer luqadeed kale oo ka kooban ilaa 204 luqadood oo ay ku hadlaan dadweyne gaaraya ilaa 60 milyan oo qof oo ku kala nool min Algeria ilaa Tanzania khilaaf baan ayaa ka dhex taagan nimanka luqadaha ku takhasusay oo ku aadan xigtanimada luqadaha reerkani ka kooban yahay qaar badan baa qaba inaanay luqadahani ab iyo isir
shaqo isku lahayn qaar kalena waxa ay qabaan taa ka soo horjeedkeeda dadyooga luqadahan ku hadlase waxa ay caan ku yihiin muuqaalkooda cajiibka ah waa dadyo marka koowaad aad u madow oo waxaa saantooda ku badan melaniinka oo ah waxaa sababa madowga dubaaqa sare marka labaadna qaar ka mid ah qowmiyadaha ku hadla luqadahan sida nuweerka waa dad aad u dhaadheer aadna u dhudhuuban luqadaha reerkan ku abtirsada waxaa ka mid ah tamasayga dingaha iyo tahay ku hadlaan dadyooga nuubiyaanka ahi inda yurubiyaanku haddii ay ahayd luuqad afrika uga soo tahriibtay yurub xilligii nimankaasoo ay dadka ku tacadiyeen astroneshiyaanku waa luuqad ka soo talowday badda weyn ee hindiya oo ka timi meel fog koonfurta aasiya ayaa luuqadan dadkii ku hadlayay ka yimaadeen waqti lagu qiyaaso 1500 sano ka hor waxaana ay degeen jasiiradda madagaskar magaca madagaskar ayaa soo xasuusiyay miyaad ogtihiin in magaca madagaskar uu ka yimi muqdisho oo uu si qaldan u qoray nin cadaani aynu u soo noqono luuqadan sida aynu sheegnay waxaa reerkan luuqado ka soo jeeda lagaga hadlaa madagaskar luuqadahanina waxaa saameeyey dabcan kuwii kale afrikaanka ahaa ee ay la falgaleen laakiin weli waa luuqad koonfuraasiyaan ah oo luuqadaha ugu dhow haatan waxaa lagaga hadlaa waddanka indonesia sida luuqadihii hore ee kale dadyooga afrikaanka ee ku hadla luuqadahan waxaa laga sii dheegan karaa shabahaan dadyooga ku nool koonfur bari aasiya walow ay 1500 sano iyo ka badan ku noolaayeen lana falgalayeen afrikaanka kale luuqadda ugu dambaysa ee aynu ogaanta dib ugu dhiganayna waa luuqadaha la isku yiraahdo Afro-Asiatic waa reer luuqadeed ay ku abtirsadaan 300 oo luuqadood waxaana lagaga hadlaa luuqadahan waqooyiga galbeedka ilaa bariga Afrika waxaa loo sii kala saaraa waliba reer luuqadeedkan 5 jufo luuqadeed oo waaweyn Chadic oo lagaga hadlo galbeedka Afrika oo ay ka mid yihiin luuqadda Hausa oo Nigeria lagaga hadlo Barbar oo lagaga hadlo galbeedka Afrika ilaa waqooyigeeda waxaana luuqadaha ku hadla dadyooga Saxaraha ku nool ee la isku yiraahdo barbarka ama Amaziiqda Egyptian waa luuqado aad u facweyn oo ay ku hadli jireen masaaridii hore imikase waa ay dabarku ee luuqadahani waxaana ka sii hadhay luuqadda Qibtiyiinta ee Masar lagaga hadlo Omotic waa luuqado lagaga hadlo koonfurta Ethiopia dadka ku hadla wadar ahaan luuqadahani ma dhama 7 milyan Semitic luuqadaha Semitic la isku yiraahdo ee Afro-Asiatic waxaa lagaga hadlaa Ethiopia Suudaan ilaa waqooyiga Afrika oo dhan waxaa ka mid ah luuqadaha aad wada taqaanaan sida Carabida luuqadda Yahuudda ee Hibruuga Tigreega Amxaarada luuqadda Herer lagaga hadlo iyo qaar kale oo badan ugu dambeynna waxaa luuqadaha Afro-Asiatic soo hoos gala jufadan la isku yiraahdo Kushitiga oo ay ku abtirsadaan luuqadaha ay ka midka yihiin Oromada Anfarta Beechada oo lagaga hadlo Suudaan iyo dabcan luuqadaha luuqadda aynu imika ku hadlayno ee Soomaaliga ah luuqadahan waxaa lagaga hadlaa badanka geeska Afrika fideogan haddaba oo daba socday fideogani hore aynu kaga hadlaynay dadooga Afrika iyo sida ay u kala duwan yihiin waxa aynu ku qaada dhigaynay luuqadaha lagaga hadlo Afrika oo aan runtii laga gayoonin in maanta oo idin la sharaxo hase haatee fideogan waxa aynu ku soo koobnay oo dusha kaga taabanay language familiyada Afrika lagaga hadlo iyo sida ay deegaanadu u qaybsadeen fideo dambe waxaa noo qorsheysan inaanu ku soo qaadano luuqado ama jufa luuqadeedyo gooni ah sida Semitica ama Kushitika oo kale iyo waliba fideo kale oo ka hadli doona luuqadda Soomaaliga laftigeeda oo aad ka heli doontaan biidhnillaahi tacaala waad ku mahadsantihiin waqtigiina fadlan ha moogaanina like-ta subscribe-ta iyo inaad la wadaagtaan asxaabtiina waa waxbarad oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu